bismillaahi raxmaani raxiim. soo dhawaada, waxaan bilaabeynaa cashirkii konton shanaad. cashirkan sida aad arkaysaan wuxuu ka kooban yahay laba qeybood. qeybtan waxay ku saabsiisan tahay xarafka ga, qeybtan waxay ku saabsiisan tahay xarafka fa. marka isla socod wanaagsan insha allah. waa gar, gar, ger, gir, gor, gur. gaar, geer, giir, goor, guur. labadan eray soo fiiri. marka labadoodu waxay ka bilaabanayaan sida aad arkaysaan xarafka ga. ereyga ugu horey haddaan ku bilowno, qeybta ugu horeyso oo buluuga ah, 3 xaraf ayay ka kooban tahay. waa ga iyo a iyo ra. ga iyo a maxaa la dhihi jiray? ga. ra haddii lagu daro maxay noqonaya marka? gar. qeybtaas waa fahanay, waa gar. qeybtan guduudkana baash, ilan shaa u dambeyso. baash muxuu noqonaa marka? gar baash, garbaash. ereyga kale asna soo fiiri. qeybta guduudka ah ama casaanka waa gar, waa isku mid. haye qeybtan kalena soore, gar soore, gar soore. qeybtan soo fiiri ayadana waa far, fer, fir, for, fur. faar, feer, fiir, foor, fuur. labadan erey soo fiiri. ereygan sidaad arkaysa wuxuu ka kooban yahay laba qeybood. qeybtan jaallaha waa fa, qeybta guduudkana waa ras, ras. waxaa noqonaa marka fa ras, faras. ereygan kale soo fiiri asna. qeybtan jaallaha waa far, guduudkana gal. haye muxuu isku noqonaa marka? far gal, fargal. waxaan rajeynaa inaad fahanteen. haddii wax su-aal jiraan dhanka whatsappka iga soo weydi. la socda cashirka 56aad. guulaan idin rajeynaa dhammaantiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.